intu waqalroogu da'ay uu buuxiyey weelashii waxyeelana meesha dhigay wadadu dheerahaa fooga wadiiqadu qodax badnaa wadaantu wax qaad yaraa وهجاك داود يا شيكا كوساب سنين وينو وعارف هاي أو كجسمي وهي بريها كمدا أيا وحي القصة قادن دورنا شيكا كدعدي باديها نين وين أو جيل راعي أيا معلمها كمدا وحلوات دراي أري تبعنا على جسوها تيرو أما بقول نف إدا تيرو الجرين هين نيكل أضيع هنا وحنشري نين جيل عليا ومرك جيل الجلية كيما حركة أما أو ضاغو إسكاس إحنا معلنتي كتبنا عصر كي أما مركز ساعات وصدق هذا القلب نمط هايون isku soo ururiyo oo sidaas isku soo caraabiya isaguna nin ari liciye iyo gaawan oo ari garanaya ma ahaane maalintii isagu markuu arigii foofiyay ayaa waxa uu geeyay kaymii sheelka lahaa ama wadaaqa lahaa ee geelu daaqi jiray markuu geeyay ayaa waxay saacad u tahay goor adigu iska barqadii ayaa arigiba uu dhereg la seexday kadibna markuu arkay in arigii uu wada farfariistay uu dhergay maadaama aan kaymahan doogal hore loo keeni jirin ayaa waxa uu sameeyay inuu isaguna sidii geela moodo oo geed qansaca hoostii ayuu iska seexday ayar markuu adigu hurday ugu yaraan 3 ilaa 4 saacadood ayaa waxa uu toosay goor 3 ilaa 2 goorahaasa kadibna wuxuu soo kacay isagoo hareerihiisa aanay joogin wax ariya xaggan uu eegay ma joogo xaggan uu eegay ma joogo dhow walba markuu ka waayay ayuu waxa niyadiisa ku soo dhacday waxa la joogtaa ari ayuu ahaa arigaasina kaynta hadii uu galo wixii cunaya waa waraabe iyo daawo iyo shabeel iyo wax kasta oo u daran ariga ku darso oo kaymahan uu ariga keenay waxa ku badan wax kasta ama xayawaan kasta ama baddugaa kasta oo ariga u daran sida waraabaha shabeelka libaaxa dacwada iyo wax kasta oo ariga cuna adigu ninkii odayga ahaa markii uu ambabaray carar arigii wuxuu raadiye uu daba galaba maadaama dhulka laftiisuna uu yahay dhul barwaaqo ah oo doog leh oo raadka arigu uu dirqi uu kaga muuqanayo geel koortiisa la dhageystana aanu ahayn isagu waxa uu raadinayaa wuxuu yahay hambada wixii soo haray ariga maadaama de dhulku wada yahay wada dugaag kadibna waxa uu 4 iyo barkii galabnimo ku soo baxay qayb kamida arigii 8 ah markuu arkay cadcaanka arigii ayuu ninkii farxay dabadeedna muu tirinba mabuu hubsanba 8 buu soo duubay show 20 kamida ayaa kaynta ku harsanaa 8 kiisii soo wareysay oo farxad gariir oo arigi tireen maadaama uu islaam maanta qura ayaad ari raacday maantana arigi saas u kaaga goosmay ama kaaga lumay oo waxa cunay wixii dugaaga ahaa ariga cuni jiray maxaad samayn doontaa ceebtaada nin weyn oo ari ka goosmay ayaa tahay ayuu farxadii sidoo soo waday goor 8 habeenimo ah ayaa waxa uu keenay reerkii arigu ka foofiyay kadibna reerkii baa la soo yaacay arigiyo deetana markaas la leeyahay maxaa xilligan ariga goor la soo hoyin jiro kadibna markaas wiiga dhaye iga tiriya waa laga tiriyo ariga waxa la arkay iyadoo 20 maqan yihiin qayb kamid ah dumarkii xaafadda oo ariga aad u jeclaa arkay rid heblaay way maqantay tii caana badneed ma joogto baroor bay qabsaday markaas uu kaadiya uu soo goosmay markaas la yiri xagee uu ku goosmay kadibna wuxuu yiri kaynta ku soo socota ay soo meeracanayaan suga ya kaynta ku xigta ayuu soo meeracanaya suga kadibna runba la mooday kayntii baa la tagay waxba waa laga waayay haddana markaas la weydiiyay markaas uu yiri riyaha maadaama inta aad leedahay inta ugu caanaha badneed waxaan u reebay sidii geela si la mid ah inay soo meeracdaan kaynta ku xigta ayay daaqayaan sidaas ha looga soo eego aniguna ilaa maanta nin ari raacay ayaan caanaha lay keeno waa la wareegay kayntii baa laga waayay tan kale laga waayay ninkii weynaa iyo dumarkii oo saysto buuqaya ayaa waxa u yimid waayeelkii reerka kadibna su'aalaha la weydiiyay waa hagaag qaybta labaad ee sheekada ayaynu gudbi doonaa